حسن شيخ محمود إماراتك iyo Sacuudiga markii hore waxay kula ballameen saaxiib mahad salaad jagada ka qaad waan ka qaadaa watii Sacuudiga isagoo gacan duuban hadda koor meesha uu tagay markii ugu dambeysayna waxay ku soo biyo shubatay inuu meesha sakaatul fitri uu raadsado boqorkan la kulmaa uu yiraahdo loo diido waatan kabcada uu maarkayse ku ooynaayay markii dambe waxa lagu yiri ballantii ma aadan fulin marka hadee jug ayuu ku sii xamse intuu soo wacay walaalkaas haduu joogo isagaan jaan siinayna soo dhawow maxaa ku baxaya maxaa loo eriyay safiirka Ethiopia hadda maxaa loo erin waayay markii badda waa la qaatay lahay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتينا وعدين سلامي مالكستو أجوكان سلام كديد هدي أن قد قالوا سؤال شهادة سفيركي مانكا لغو واقعي والدك والغي إريا لهاي شالينا لإرين واي أما بلكور لإرين واي تاسو حين موجينا يسا دورك مركزة بدلان مركزة كقادة دولة فدرالك مركا وحلو إريا sababaha marka oo loo eriyo waxay tahay sidee Puntland heshiis dhanka maalgashiga ah marka la qaadatay dawladda Ethiopia ama xiriir oo samaysatay taas ayaa dhalisay in marka maanta marka macnaha la qaato masiir marka oo xasan marka aansan u qalmin ama dawladnimada aan ku wanaagsaneyn in maanta iska dhawaaqo afarno odayaal marka qol inay isku soo xirtaan ay dhahaan wax la wax raban ay sameeyaan دوانا أبنهاي مكسا إثيوبيا مكسا يدا بهرو وشبتي معنا محوها دولة مقدسة كجرت مكسا أنا قاعد إسكال هيدهن أنا قاعد نسمي مكا حسن وحو خادي كريا ملاي مكسا قلا وحنا قلا وزير ولا مدي كريا وقوة عاد قتيال أو مكسا حسن جاب وجرو أو حسن وشقيا واي مكا وادق قرية حسن كسوك حيو سوح والبا مكسا وح مكسا كوض خط لا مكسا ومدنا كمرن حبابين هاي واد تاسنا وحي دليل أطاي مرن حبابين كمكسا oo qayb ka mid ah marka al-shabaab la dagaalankii oo kala waa ana dadkii ayaa lagu maran hawaabina dastuurkii marka oo buuqa ka taagan oo Puntland marka ay dhahday dawlad ka madax banaan dawladda federaalka ayaa noqonay marka ilaa marka laga helo dastuur ummadan Soomaaliyeed u wada dhaxeeyo oo ay wada ogol ah inta laga helay banaanka ka taagnanayna taas ayaa lagu xarqaladayna oo dadkii marka lagu maran hawaabina oo macnaha oo bay u tahay لكن واحد سو كردين يسابيرات مالد من مركز صدح بلوك كهر ماشي كده وريجنا هاي لمبر أفر وريجنا قارب بالبروف كل كروتي وعيد مدرسة إثيوبيان كإلى لنا ين مركز هذا ولا جريه دوا ووح مركز ولا يابو هاي مركز لا هاي مركز ودقن قليا سفارة ده أما قنصلية ده هرجيسة جروا إن الباب اللي يسوقون فانا يتضبط جديدة أمريكا دولة حسن شيخ taas marka sababta waa mid marka saarinkii xalay tagay ah waay dalkan dawlad kama jirto dalkan waxa joogo niman qandaraasliyaal ah oo xasan marka soo horkaxayo marka maadaama qandaraasliyaal marka ay joogan oo abi ahmedna uu ogyahay waxan inay yihiin xaruntiisa ay yihiin xasanna uu yahay marka nin jabkiisa buuxsanayo uu yahay wuxuu xasan dhahay marka xid marka dhigaysanaysa male نول بمر كساد مسير كيس أسرع عمر حبنان أحمد مدرب مال بوس كايستا ده كده سواستا يلا خذلو أدل هذا الشمالي وعطنا هذا مركزات بحوش اللي قدروا فينا دني مركزات إنه أو هذا مركزات دب كيسي مركزات مجالات يصير مركزات إنه هرب مرصده ما حد يدعي إلا حسب بمركز صاحب من القصوى الرسولية مجالات مقدشة أفقوا حتى دولين سكتنا في تربيان حتى كمشق يصير فيلا صوماليا الباب كده كشق يصير ما حد يدعي مو سبي مركز إنه بدي يصير مركز عنده ربو كريست أما عنده ربو كجته ما حد يدعي واحد يدعي كريم مالي ما هاد صلاة معني حل كان لقى قاضي سنبلوا الشيء محو سوكر دينايا واحد سوكر دينايا مالي كريم هل حد سوكر دين كريم إن مواطنين سوماليات لود حنقليه مركزا محوها عندما أجنبي مركزا أو بدك كل كذا فديو مركزا أما إيربورك فديو مركزا حالنا فديو إن كحنت لو قليه نيكلا لو سنبلوا الشيء ما شاء كرر إن ما في حنيك ما هتكوان له ما هتكوان له أيا وحي قبته إنه جاي ما أنا ولو خرحية مركزا مجالات المقدس مركزا بدك مركزا الجورحة ما أنا مركزا الجورحة ما تحل الجبناي محو قلم كريانك كان مركزا أو المجمد كو ماشي أسكت حفتني ومركزا أو نهاية مركزا محوها سنبلوش مركزا ذاك ما يقانن سنبلوش وانين هو جامي كو حديدي هروان
وانكي اوغادينكا واجي لا سو قخا 91 اوغادينكا webiga ku guri jiray waa asaga waa gacantiisa ku guri jiray asaga dadka dili jiray asaga dadka gowraci jiray waa tan hadda markii uu 2014 haddaad ogtahay hadii kalaba 2014 inuu weeraray Axmed Daaci markii siyaasiyiinta Muuse Suudi yalaxuu weeraray oo kabihiisa markii ku aasay oo isku dayay inta ku dambeysay Cabdiraxmaan Shakuur markii qaraxyo dhowr jeer u dhigay markii muxuu ahaa ninkii Axmed Daaci markii todoba saxabeynimo markii qaraxyada xataa ay ka socdeen magaalada gudaheeda taamkii farmaajo maxaa ku xigay ninkii la dhahayo qalbi dhagax waa tii ninkii inuu baxay oo ninkii la dhaho markii muxuu ahaa taliyaha hadda mise cusub sanbalol inuu baxay gaalkacyo tagay diyaarad ku soo qaatay helicopter oo indhaha ugu duubay oo nin Ethiopian u dhiibay soo ma ahan de waxa kale la sugi kariya maxaa waay muwaadin kastaba in la gato markii xaq laga sameeyo taasna waa tan xasan markii uu dhibto oo Mahad Salaadna uu diiday in shacabka la gato ayuu diiday Mahad Salaad taas ayaa meesha ka cad markii in ninkan gacan ku dhiglaha oo dadka dilaayo markii oo meel uu ka taliyo email uu ka taliyo aysan jirin markii inuu dadka dilo dadkana gato xasan shirkad bay ku yihiin Mahad Salaad markii waa nin sharaf leh oo wanaagsan oo meel degan oo iska socdo waxa Sanbalolshe wuxuu shaqaalaysiiyay sarkaalad Igraan Tahliil Faarax oo u dhalatay beesha gaal jecel oo hawiye maantay isaga taliye sirdoon ma laga yaabaa in ma arkayse Faad Yaasiin Farmaajo dilay waatii ay lahaayeen in Faad iyo Farmaajo maxkamad ay soo saaraan oo ku cadeeyaan in Igraan ay dileen iyagu ma laga sugayaa horta markii horta Sanbalolshe waxa fiican sanadihii hadda ugu dambeeyay ama bilooyinka ama maalmihii ugu dambeeyay maxaa la dhahay ninkii hadla markii Ilaahay u toobad keeno la dhahay dad badan Farmaajo xataa maxaa la Ilaahay u toobad keeno laakiin aniga waxaan leeyahay Ilaahay u toobad keeno ninka la dhaho markii ummadda Soomaaliyeed horta ha weydiisto markii afin markii dadweynaha weydiisto ninka Sanbalolshe gacantiisa ay ku maqan tahay Igraan Tahliil asaga abtuu asana dilay asana gacantiisa ku maqan tahay waxaa uu leeyahay waa ninkii horboodayay midowgii shayaadiinta ahaa oo hawiye oo midowga musharaxiinta lagu magacaabayo oo hotel Jaxiima markaa ka soo aadaamay oo Xasan Sheekhna markaa uu ahaa hormuudka waxa oo u fadhiyay markaa Xasan Sheekhan hadda bilada dhax fadhiyo oo dhaxgalay maalin qad inuu hub asagoo wato markaa inuu dhaxgal marinaayo Sanbalolshana uu daba socday Sanbalolshana uu ahaa abgal uu ahaa ama hiraab uu ahaa markaa afayeenka markaa beelaha hawiye uu ahaa حوالنا كم أبترصدوا هوية كم أبترصدوا وانين عن كل رجلها هواية نكلا نهم مركز محوها سنبلورشة أتانا كنتم بيو قلدي دشنا أصلا مسؤولية حتى آمنه قبل اللي قرحنا نك مركز أسوف فتودي أو مقلاي الباب كيدا ويستاجر حلي بان آمنه حبدي قال لي قبل اللي دل جري أو بلد وين اللي قلت له أصلا فتودي وين أبتي أو يهي أيا فتودي oo soo wada nimankii shabaabka u tagay markaa bariga galbeedka markaa qaybta gaaljacelka ay degan yihiin ugu tagay oo heshiis la soo galay oo xaq ku qaatay oo aadooyin miidiyan ay ku jirto oo soo waday oo isku dayay ninkii isqarxinayo isku dayay inuu gudaha galiyo laakiin gudaha galin waayo maadaama lama galay markaa asaga markaa caan uu ka ahaa wijigiisana oo wajigana passport uu yahay qofkana markaa qofku yaqaanay markaa uu aaminayo ay Soomaalina isoo wada aaminto kii tuuga iyo kii markaa tuuga kulli isoo wada aaminayo si fududna isku aaminayo maadaama ninkii shabaabka ahaa uu meesha gali waayay ninkii albaabku istaajiyay Sanbalolshe asaga abtuu maxaa dhacay markaa aamin in la dilo ninkii marka la soo qabtay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo qabatana markaa oo dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay dhacdana oo soo qabtana inuu asaga difaacay maxkamadda shuurta oo ka difaacay Sanbalolshe marka Sanbalolshe wuxuu soo kordhinay male wax uu soo kordhin waayay Sanbalolshe markaa wuxuu soo kordhinay male Sanbalolshe inuu dadka Soomaaliyeed markaa ummadda Soomaaliyeed u gadgato ayay markaa u soo kordhi karo taasna waa tan Xasan markaa uu igmaray maadaama Mahad Salaad markaa uu ka diiday Xasan markaa inuu wax la gadgato ama shacabka Soomaaliyeed la dhibaateeyo ama markaa saxaafadda la caburiyo waxyaabahaas oo dhan uu ka diiday markaa ugu dambeyntii waana soo dhaweynayna ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambaysa haddaan fursad ku siino biidnillaahi baari حسن شيخ محمود حكم دير إنه كجوجو ربع كرسية ما أسورة جلي دونا دار شقة في عضو يسكو عنا شبه تاصرت والريو حسن وحر ربوا ومد أقول ريو نقف كدو مركز الريو نيانو حافي عن إن أصغو مركز هردا يقول ريو لك حسن وانين مركز تي بي ألف تي سركال تي بي ألف أو سركال هذا أقوى وين تي بي ألف أيو كم دهاني جري dalkaana wuxuu rabaa inuu gadgato dadkana uu isku diro ummadana markaa uu kala eriyo
si asaga uu dhaho dalkan markasta fooda ka jirto markasta inta foodada uu ka baxayana markasta muxuu ahaa waa sii joogaa weli taa waxaa ka daran 12 bishan abriil 12keeda mashruucii wuxuu soo celinaa argagixisada dagaalankii ayuu soo celinaa uusan marrab inuu soo dego rabaa yaa soo daba socdo mahad salaad oo 25 proof iyo baabuurta technically markasta oo taale nisa iyo dokumentiyada inuu soo rartay guuraxal geystay asagana waa soo daba socda xasan markuu ka soo noqdo meesha xajka waxa loo aadana wax kale ma waa boqortooyada Sacuudiga markasta zakawaadka markii loo diidana mahad salaad oo tan haduu ku soo laba kaclay oo dhaa markasta warniyo ninka aan la darsiyo laakiin hadda weli shirkada ku yimaado waxaan rabaa in qoor markasta laga taqluso ka bacdina markasta xasan saa uu sii jooga laakiin waa mid markasta aan soconayn markasta xasan hadii uu sii jooga kursiga hadii uu sii joogeeninba hadda 19 bilood harta 19 bilood bas uu harta xasan laakiin asaga wuxuu xisaabsanaa 3 sano kale inuu harta laakiin 19 bilood harta 19 bilood ka bacdi ayaa la arkaa si fiican loo arkaa markaas aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalka isaga ah 19 bilood kadib warbaa jira laakiin ka hor aabla leeyahay saaxiib doorasho meel ku sheeg beesha caalamka mar hore nusteen wadar ogolay dhaheen waxayna ogaadeen beesha caalamka qofka Soomaaliga haduu yiraahdo qof iyo cod baan doonaya oo siyaasiga ah in uu danaynayo in uu dictatoriyad ama macnaheedu extension waxaas inuu samaysto xasan sheekh maxamuud waxaan oo dhan wuxuu u samaynayaa maadaama cid dooranaysa aan jirin in uu macnaheedu waqtigiisa ku yaraaday marka adduunyadana waxa weey hadii ilaahay iimaanka uu ka qaado wax ku deeqaya male waxa lagu duceystaa Allah yow cimriga noo barakee inta aan siisayna inoo barakee hadii adduunka mugiiso dahab lagu siiyo laakiin baraka aan lahayn xalaal xataa haday tahay maxay ku sheegaysaa marka dhibaatada haysata nimankan 4 sano ay qaateen 4 sano ayaa la yaraatay 2 sano hadda way dhamaatay already way dhowdahay 2 sano dhiman campaign-kii maalintii ay imaanayeen ay ku jiraan ilaa hadda xasan sheekh maxamuud campaign uu ku jiraa isagii saaxiibadiisu mar rumaysna in ay villa Soomaaliya ka taliyaan in ay inuu madaxweyne yahay inuu head of state yahay inuu dal hogaamiyo maba aaminsanaba marka way sumaysan yihiin xaaraanta ayaa daandaamisay dhiigga bani aadamka ayaa ka batay aniga reer abtiyaday baan adduunka ugu jeclahay digiliya mire heflani mahankii murtida badnaa 9 mahankii salaadag lahaa sinjiga Soomaalini mahankii saxloo yaqaan ayahan mackanu hugayo maamadeydu tahay gabalka maylahana gaar bayu leeyihiin madaxaday noqota suhula sarey qabaan gayiga Soomaali ayahaga u baaxad weyn British way ahane allow barakee dadkaas British way ahane allow barakee tolkey dhulka hada barwaaqadiyo nimcada dhaxtaal rag baa dagaalku qaado doonayay inay degaan balse waxaa ka dihiday boqortooyadii raxweyn balse waxaa ka dihiday boqortooyadii raxweyn allaha barakeeyo meeshay ku badan yihiin allaha barakeeyo meeshay ku badan yihiin allow cadowgooda cagta hoosoo gala allow cadowgooda cagta hoosoo gala ishii ka naxdo hoy naxuuso naftaada waa